waxaanu eegi doonaa natiijadii kulankii adkaa ee El Classico iyo sidoo kale hordhaca kulanka Derby della Madonnina ee AC Milan iyo Inter Milan oo Malaygan isniin la ciyaari doono balse aan waxa soo idilka hormarino kulankii kayaabiska ahaa ee ay dadku isweydiiyeen waxa ku dhacay Man United ee Coventry City iyo kooxda Man United waxa shalay toola qabsoomay kulan kabaya badnaa kii ka sii horeeyay ee la islaha isaga ayaa ka adag ee dhaxmaray kooxaha Man City iyo Chelsea waxaanu ahaa midkii la yareysanayay ee kooxda Coventry City iyo kooxda Man United dadku imika waxa isweydiinayaan Man United ma waxa iska caymisay inay ceebowdo mise finalkii un bay caymisay laakiin ceebtu waa halkeedii kooxda Man United ayaa ciyaaraysa kulan mar la islaha waa mid u sahlan marka la isu eego awoodda labada kooxood balse kooxda Coventry City ayaa waxa ay muujisay inaanay marna ahayn caws sac loo dhigay taasoo khasab kaga dhigtay kooxda Man United in ay harjad iyo halgan u gasho sidii ay ugu soo bixi lahayd dhamaadka FA Cup oo ay bisha soo adag kula balansan tahay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Man City saxbal sidii la siifulayayba kooxda Man United ayaa gacanta ku dhigtay ciyaarta oo ay maamuleysay tan iyo daqiiqadii 70aad iyadoo ay saddex gool u kala dhaliyeen laacibiinta Scott McTominay, Harry Maguire iyo Bruno Fernandes yeelkeeda mar ay islahayd ciyaartani way ku dhimatay ayaa waxaa miciyo dhaadheer la soo baxay kooxda Coventry oo xilli aan loo joogin u xaydatay dagaal horle si ay u khasabto in ciyaarta waqti dheeri ah lagu daro mar ciyaartaba ay ka harsan tahay 20 daqiiqadood ayaa waxaa ciyaarta Coventry ku afbaray laacibka Ellis Sims balse halka kuma harina kooxda ka ciyaarta Championship waxa goolka labaad u dhaliyay laacibka Callum O'Hare ka hor intaanu goolka saddexaad oo rigoore ah ku qaaraamin laacibka Haji Wright kaba sii darane Victor Thorpe ayaa xitaa mid afraad ku daray si ay ciyaartaba 4 iyo 3 ugu badiso kooxda Coventry balse goolkaas waxa laga dhigay dhinac bax ama offside kadib waxa lagu daray waqti dheeri ah oo aan lagu kala bixin waxaana deeto loo dhigay labada koox rigoorayaal kala baxa mar kale ayaana wadnaha la gooyay kooxda Man United waayo qabtaha kooxda Coventry Bradley Collins ayaa laadka ugu horeeyayba ka dafiray laacibka Casemiro balse waxa wajigiisa badbaadiyay Andre Onana oo isna ka qabtay laacibka Callum O'Hare ka hor intaanu fursadiisa cirbixinin laacibka kale ee Ben Chef taasoo fursad kale siisay kooxda Man United waxaana uga faa'iideeyay laacibka Rasmus Højlund balse sida ay niyadda uga dilan tahay koox ahaanna aanay isugu toleyn waxa tilmaamaysa sida Man United ay ula dhaqantay laacibkan dhaliyay rigooraha guusha ee Højlund kaasoo sidii caadada ahayd aan helin marxabayntii iyo ciyaartoydii ku soo carari jirtay marka uu laacib dhaliyo goolka ugu dambeeya ee guusha kulan kasta oo la dhigo rigoorayaal kala baxa waana mid kamid ah waxyaabaha ay tahay Man United in ay wax ka qabato imika hadaan eegno dhinaca rikoodhada kooxda Man United ayaa markii ugu horeysay ku guuldareysatay inay waqtiga caadiga ah iyo waqtiga dheeriga ahba ku badiso ciyaar ay 3-0 ku hogaaminayso laacibka khadka dhexe ee Bruno Fernandes ayaa gool dhigay ama dhaliyay 17 kulan oo uu u safnaa Man United oo uu kulan bilowgiisa u saftay Febraayo 2020 laacibka qura imika Premier League arinta uga sareeyana waa jokerka Liverpool ee Mohamed Salah oo 20 jeer sidaa yeelay dhinaca kale markii rigoorayaasha laga saaro kaliya Rasmus Højlund oo 13 gool dhaliyay ayaa ka goolal badan markii Manchester United oo dhan xidigeeda la eego laacibka Scott McTominay oo 10 dhaliyay imika aynu jalaacno kulankii El Classico oo 5 gool xalay la iska dhaliyay waxa uu ahaa kulan kooxda reer Catalonia ay doonaysay inay farti ugu dambeysay taagato hadiiba ay qabto dood ku saabsan inuu han horyaal weli ku jiro balse taa beddelkeeda waxa halkiisi ka sii socday toddobaadkii ciqaabta ee ay mareysay kooxda Barcelona kadib markii 3-2 ay ugu cudud sheegteen wiilasha cadcadka ee Real Madrid Barca oo gool uu dhaliyay Christensen oo kaalmo ka helay Rafinha la soo kalahday daqiiqadii 6 ayaa waxa uu jawaabay jokerka reer Brazil iyo kooxda Real Madrid ee Vinicius Junior balse Barca oo madax adeeg iyo go'aan adkii muujinaysa ayaa mar kale hogaanka u qabatay ciyaarta markii uu Lopez gool ugu qaaraamay yeelkeeda Vasquez oo farafudeed muujinaya ayaa 3 daqiiqadood kadib sabab u noqday inuu saqiiro hogaankii ay Barca mar kale ciyaarta u qabatay mar la islaha ciyaartani waxa ay ku dhiman doontaa ismarwa 2-2 ah ayaa waxa luuq aanay jeclaysan uga soo baxay jokerka khadka dhexe ee Jude Bellingham oo noqday xidig magura ah oo aanay Real Madrid ku khasaarin ganiyadii ay ka bixisay wiilka reer Ingiriis oo uu macalinka cabqariga ah ee Carlo Ancelotti uu garoonka ka geliyay boos uu goolasha ka gaaro ayaa hata noqday midka ay aragiisa ugu nacab yihiin reer Barca waayo 3 gool ku dhan ayuu ka dhaliyay 2 kulan oo El Classico haddii aan waxoogaa farta idin daro rikoodhada labada naadi ay kala dhigaan kadib guusha xalay toole ee 3-2 ahayd waa markii ugu horeysay qarnigan 21aad oo idil
ee kooxda FC Barcelona ay laba jeer hogaanka u qabato kulan El Clasico ah ee misna laga badiyo. Jude Bellingham waa laacibka ugu horeeyay ee labadiis kulan ee ugu horeeyay ee El Clasico ah gool ka dhaliya tan iyo waayihii Ruud van Nistelrooy ee 2007. kooxda FC Barcelona ayaa waxaa 12 gool u dhaliyay laacibiin bedel ku yimi horyaalka La Liga fasal ciyaareedkan taasoo ay uga badan tahay koox kasto kale. tan iyo kulan bilowgii Vinicius Junior ee kooxda Real Madrid fasalkii 2018 ma jiro laacib kaga badsaday goolka dhalinta kooxda FC Barcelona tartamada oo idil isagoo ka dhaliyay 7 gool walow uu barbar la yahay qanaaska hore ee kooxda Real ee Karim Benzema. kooxda Real Madrid ayaan laga badinay 27 kulan oo uu safka ku soo bilowday laacibka Aurelien Tchouameni taasoo ka dhignayd 22 gool iyo 5 barbaro marka loo eego 2 gool darro oo ku jirtay 18 kulan oo aanu laacibkan reer Faransiis ku soo bilaaban safka koowaad. kooxda Real Madrid ayaa 6 ka wada tirsatay kooxda Barcelona labada lugood ee La Liga markii saddexaad muddo 39 sanadood ah kadib 2007 oo uu watay Bernard Schuster iyo 2020 oo uu watay Zinedine Zidane. macallin Carlo Ancelotti ayaa markii 16aad waxa uu kooxdiisa safay kulan El Clasico ah isagoo booska kala baxay Pep Guardiola taasoo ka dhigtay macallinka afraad ee taariikhda layliya koox ciyaaraysa kulanka El Clasico ee dhexmara kooxaha Real iyo Barcelona. imikana aynu eegno Serie A Talyaaniga iyo kulanka adag ee Derby della Madonnina ama derbiga marwooyinka oo Milan ku dhexmari doona labada kooxood ee aadka u xafiiltama ee AC Milan iyo Inter Milan oo isku arki doona gagada San Siro iyadoo aan dabcan caadi ahayn in kulankan la ciyaaro xilli Isniin ah. kooxda Inter Milan ayaa imika hogaaminaysa horyaalka Serie A Talyaaniga waliba caawaneera Asuri waxaa la saarayaa taajka horyaalnimada haddii ay ka badiso kooxda AC Milan. waxaase kulankii ugu dambeeyay 2-2 ku qabatay kooxda yar ee Cagliari oo waliba San Siro kula ciyaartay halka AC Milan oo waxoogaa daala dhacaysa ay kaalinta labaad kaga jirto horyaalka waxaana toddobaadka bartamihiisii Rossoneri ka reebay tartanka Europa League kooxda AS Roma oo 2-1 ku dhufatay. waxaana u baahan tahay in ay kulankan ismuujiso. haddii aanu eegno dhinaca rikoodhada labadan koox ee taariikhiga ah AC Milan waxa ay badisay 115 halka Inter ay badisay 114 marka la eego dhammaan ciyaaraha ay kulmeen oo dhan 309 tartamada oo idil. yeelkeeda kulamada ugu dambeeyay waxaa fakfak roonayd kooxda Inter Milan oo badisay 5 kulan ee ugu dambeeyay tartamada oo idil kuwaas oo ay ku jiraan 2 semi-final oo Champions League ah iyo Italian Super Cup. waana rikoorka cusub kulankan derbiga oo ma aanay dhicin in kooxina 5 kulan oo xiriir hore u badiso balse dhinaca Serie A labada koox 4 kulan ee la soo dhaafay midba 2 jeer ayay badisay. AC Milan waxay badisay Febraayo 2022 iyo September 2022 halka Inter ay badisay labadii ugu dambeysay ee horyaalka. labadan kooxi waa isku garoon oo waxa ay ku wada dheelaan San Siro ama Giuseppe Meazza balse AC Milan mar qura ayay badisay 8 kulan ee ugu dambeeyay ee ay wajahday Inter Milan tartamada oo idil marka ay iyadu garoonka leedahay. tii ay guushaasi timid 2022 markaas oo ay 3-2 ku badisay. Inter Milan haddii ay caawa badiso sida sheegnay waxa ay qaadaysaa horyaalkeeda 20aad ee Serie A waxaana calaamada loo yaqaano 3 midablaha ama tricolore loogu dhajin doona 2 xidigood oo hurdi ah ama jaallo ah. waana markii ugu horeysay taariikhda oo kulan horyaal ah lagu go'aamiyo kulanka Derby della Madonnina. kooxda Inter ayaa ah mid ugu gool badan kulankan Derby della Madonnina waxay dhalisay 304 gool halka AC Milan ay dhalisay 284 gool balse ninka ugu goolal badan markii xidigaha hal loo eego waa xidigii hore ee reer Ukraine Andriy Shevchenko oo derbigan ka dhaliyay 14 gool. Maxamed Xaaji, Hadalsama TV.